السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة كانالكي كسو دوادا مركو كواد وانا إذن سلامايا سيدا ujeedaan ba ama ciwaankaba ku aragtaan waxaan rabaa inaan wax yar idin kala wadaago abka ama abyada aan isticmaalo marka aan marxaladan ayada ku jiro gabar kasta oo markaas ayada marxaladan ku jirtana ay aad iyo aad runtii u anfacayso information dhamaystiran ay ka helayso taleefanka aad wadato runtii markii laga soo tago communicationka iyo social mediaha waxa uu leeyahay intifaac aad iyo aad u fara badan oo aad cilmi ahaan iyo caafimaad ahaan iyo dhan kasta ka anfacayo hadda saad u jeedaanba waxaan soo rabaa inaan soo qaato ama aan tusaale yar ka soo qaato abyada aan u isticmaalo marka aan xaaladan ku jiro waana filayaa inay gabar kasta haysato laakiin qofkii aan markaas ayada haysanan ugu faa'iideeyo runtii waqtigan waa waqtiga aad ugu baahan tahay informationka si kastood markaas u curanayso si kastood aad xaalad kastood ku sugan tahaba waxaa aad iyo aad u muhiim inaad la socoto xaaladaada sababtoo ah maalin kasta waxaad isku arkaysaa isbedel nooc kale ah khatar baa ku sugan tahay macaadi baa ma normal baa xaaladan yacni information mar walba waa u baahannahay aniga marka hadda saa u jeedaanba abkan waa ab la yiraahdo pregnancy plus waa ab runtii aad iyo aad u qiimo badan muddo sanada ayaan abkan isticmaalayaa boggiisa kood markaad soo furto ayuu saan u egyahay wuxuu lambar wan qorayaa xaaladda aniga aan ku suganahay inta weegaan ahay inta maalinaan ahay siduu cunuga u egyahay iyo marxaladdu markaas ayada ku jiro meeshaan hoosena waa iska block warbixino runtii aad u qiimo badan ay ku qoran yihiin oo kaasaad aragtaanba 36 week ayaan ku suganahay sidoo kale halkan wuxuu uga warramaya markaad kusii dhufato isla bogaas isaga ah cabirka cunuga miisaankiisa inta uu yahay xaaladihiisa qaabka uu egyahay inuu macnaha abuur ahaan dhammaystiran yahay sidoo kale halkaana wuxuu ku qorayaa warbixin jir ahaantaada iyo wixii aad markaas dareemayso iyo xaaladda markaas ayada aad ku sugan tahay sidoo kale talooyin caafimaad buu ku siinayaa haddaad mataano wado yacni warbixintiisa ma kala ahan maasha allah aad baan runtii abkan u jeclahay had iyo jeerna waa update waa ab runtii aan isdhihi karo dhakhaatiir fara badan baa horta wax ku qorto waddan laga leeyahay ma garanayo laakiin caadi ma ahan sanad kasta warbixintiisa way cusub tahay hadda saa u jeedaanba wiiga koowaad suu cunugu u egyahay waa subxaan allah wiiga labaad suu u egyahay yacni wax bilaadan u eg ma aha waa wax runtii aad iyo aad la yaab u leh abuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu ugu socdo bilaadan isku bedelayaa marba nuucuu u egyahay hadda ilaa iyo wuxuu gaarsiinayaa wiiga 41 waa wiiga ugu dambeeyo kolley 40 waa waqtiga hooyada laga fooliyo marka caadi maaha abkan runtii qof kastana waa kula talinayaa inuu soo degsado oo markaas ayada xaaladan ku jiro amaba haddii geli rabo halkaasaad u jeedaanba waxa uu kusoo qorayaa dhammaan cuntooyinka nutritionka leh hooyada uurkana loogu talagalay qaabka aad u qaadan lahayd xaaladaada sida ay tahay sida weight gainka ama cayilka mararka qaarkood hooyooyinka koro beebiga iyo macnaha maxaa la jirta calooshaada macnaha siduu kolba nooc isku bedelayo adiga iyo xaaladihii aad dareemayso nooc kasta leh haddii uu xanuun jiro haddii aad yacni wax xanuun oo waxaa jira mararka qaarkood normal ah oo inaad dareentay caadi tahay laakiin adiga xaalad adag kugu haayo oo laga yaabo inaad dhakhtar u aadaba laakiin haddaad abkan haysato informationku ku siinayo runtii aad iyo aad buu u fiican yahay ilaa aad dhasho ilaa marka aad xataa dhasho kadib cunuga iyo macnaha maxaa la jirtay iyo quudintiisa ama macnaha maxaa la jirtay xaalad aad ku sugan tahay wax kaste xataa qaabka waalid loo noqdo ku sheegaya wax kale iska dhaafe oo xataa aabihii laftigiisa looga warramayo iyo siduu macnaha xaaladaas ayada uu hadduu markaas ayada ku cusub yahay qaabku markaas ayada macnaha maxaa la jirtay uu u soo dhaweyn lahaa halkaana waa toolska aad ka isticmaali karto maasha allah adiga waxaa ku qoran kartaa macnaha maxaa la jirtay inta aad cab tahay miisaankaada kadib asaga kuu sheegaya wixii kugu kordhay wixii ay tahay inay sax tahay halkan sidoo kale waa abodment haddaad leedahay abodmentiyadaada wuu ku xasuusinayaa halkan waa shoppingka iyo alaabaha ay muhiimka tahay inaad checklist ku sameyso aad qorato oo ay tahay in aad cunuga u soo gado runtii
macnaha maxaa lii jirta waqtigu cunugu cusub yahay wax gad fara badan lama sameeyo wixii markaas ayadaa muhiim ama ogiye waayo dadka soo dhalay way fahmi karaan inaad qashin fara badan marka hore intaa xaabiso marka 40 ka baxdana waxaa ka isticmaasho aweyneyso sidaa daraadeed waxaan kula talinayaa marka hore inaadna ku boodin wax kasta aad soo gadin laakiin inta muhiimka bas aad kasoo qaadato kadibna aad macnaha maxaa lii jirtay marka dee xaaladaada caafimaad aad wanaagsanaato adiga cunug beebigaada markaasaad waxaad doonta soo gadan kartaa halkan waxa uu warbixintan waa aniga iyo macnaha wiiga aan ku suganahay inuu cunugu diyaar yahay inuu cunuga dhalan karo waqti kaste halkan wuxuu ku sheegayaa boorsadan qaadan lahaa wixii aan ku ridan lahaa oo hospital bag bay dhahaan calaamadihii wuxuu ii sheegayaa nabarada marka haddii macnaha ay igu bilowdaan xaalad kaste oo aa ku sugantahan kura abkan wuxuu ka tegaya ma jirto marxaladihii aamirayso dhan buu ku sheegayaa ilaa aa ka dhasho caadi maaha marka aadan u jeclahay runtii halkan waa fitamiin K wuxuu leeyahay carruur qaar baa talaal ahaan loogu mudaa laakiin ma aqaan in waddan kasta yahay caadi maaha marka maasha allah boggan waa bogga macnaha maxaa lii jirtay koowaad marka kow aad gasho waaye kadib wuxuu ku siinayaa blog warbixinadii oo dhan markaas adiga ku qoseeyo yuu ku hoos qorayaa markasta wiiga ku jirto warbixin kasta oo ku qoseyso oo blogaas ku jirto hoos bay kugu qormaysaa midkan waa abka labaad abkan waa abka markii aad foolanayso ayaa loogu talagalay wuxuu macnaha maxaa lii jirta kuu tirinayaa nabarada iyo macnaha inta ay yihiin sidoo kale waqtiga ay tahay inaad dhakhtarka la wacdo ama aad isbitaalka aado yacni nabaro waxaa jiro ilaa 7 minute hadday u dhaxayso aad ku qasbanta inaad dhakhtarka aado taasoo kale ku qorayaa asagaa marka hore aad waxaad taabanaysaa meel buu leeyahay kilig la siiyo meeshaa kilig siinaysa markuu nabarka ku qabto markuu kusii daayana waa taabanaysaa asagaa marka isku dhudhufsanayo xisaabaadkii averagekii intuu nabarka kaa maqan yahay marka ma taabanaysid markuu nabarka ku qabto iyo markaa sii dayso kadib wuxuu isku dadarsanayaa inta daqiiqo ku haayo intuu kaa maqan yahay markuu ku qabto macnaha intuu ku haynayo wixii markuu isku dardarsado kadib asaga wuxuu kuu sheegaya ku leeyahay yes waa timeka markaan bixi lahayd oo dhakhtarka aadi lahayd ama dhakhtarka u wici lahayd wuxuu kuu sheegayaa inta nabar ku qabtay sidoo kale marka aad aado meesha muxuu ahaa isbitaalka tagto maba hadlaysid ani asaga ay hadla ilaahay amarkiis markii la dhaho nabaradaada meeqa waaye xaaladda ay weydiiyaan asaga intaa u taabtaan u dhiibaa oon dhahaa saaxiib yaal la sheekaystaan dhaha asaga waa kanaayo wax kaste asagaa qoraaya marka ani uma baahni markaas ayada ah inaan ii sheego ama dhaho saas waay inaan dhaho uma baahni alla wixii aan u baahnaa lahayo dhanba meeshay ku qoran yihiin marka ayagaa markaas arkaayo contractionka inta ay qabatay inta ay tahay macnaha meeshu inta uu ii maraayo saantay u arkaanba wax ay iiga baahan yihiin warbixina ma jirto asagii bay wixii oo dhan ku qoran yihiin caadi maaha marka abkaas asaga laftigiisa waa nabarada bes shaqo kale ma qabta asaga sida ujeedaanba midkan saddexaad waa mid local ah waa mid kule wixii Scandinavianka aagan degan u yaqaanaan libero wala maasha allah waxaa waaye baambari ma aqaan productiyo leeyahay horta oo baambar iyo waxaas uu soo saaraa laakiin maasha allah waa isaga laftigiisa marka gudaha u gasho boggiis koowaad waaye hadda halkan wuxuu ku warbixintii dhameystiran waa isla kii oo kale luqadda nooshka ku qoran yahay ma ogi laakiin waxba ma kala duwano waxa ku qoran dhammaan xaaladaha markaas ayada ku sugan tahay inta isbuuca tahay xaaladda markaas ayada ii sheegay caafimaadkaada wixii u baahan tahay inaad diyaarsato yacni waa isku warbixin waaye waa pregnancy plus isagoo waxba ma kala duwano kaliya kan waxaan u doortoon inta badan u isticmaalaa maadaama magaalada waddanka aan deganahay yacni markastaba waxyaalo update jiro waxyaabo waxaa jiro ii sheegay sharciyaha noqoto lasoo saaro ha noqoto ii sheegay warbixin caafimaad oo cusub xaalado cusub oo yacni waddanka kusoo biiray aad iyo aad buu marka kaa caawinaya marka mid international inaa haysato way fiican tahay mid local inaa haysatona way fiican tahay si xaaladda guud markaas waddanka ku sugan tahay oo la socoto iyo wixii kusoo kordhay dhan caafimaad iyo dhan kaleba sidoo kale kan internationalkana dee wixii dadka dhan ay wadaagaan ayaan u isticmaalaa marka intaas ayaan kusoo koobayaa waa saddexdaas abyada inta badan anigaan isticmaalo waa libero oo midkan oo localka ah pregnancy plus oo midkaas internationalka ah iyo midkan contraction ama muxuu ahaayey nabarada midka loogu talagalay macnaha si in lagu tiriyo
وارنتي آدي آد بأن قطر أهانتي دي أنفعين وأنا إيش wax badan waa isticmaalayay waxayba ka mid noqdeen noloshayda caadiga ah hal meel aan ku aruursadaa waqtiga xaaladan aan ku suganaana saddexdeedoo banaankan soo dhigaa saa mid kastaba aan goonidiisa oo la socdo abootmentiyada xataa hadda aan leeyahay oo dhan wax kasta isagaan ku qortaa marka gabar kaste waxaan ii sheegayaa usoo jeedinayaa inay xaaladeeda la socoto dhakhtarka bes aan isku halaynin qaar baaba xataa dhakhtar teginba oo aan dan ka lahayn haddii waqti macnaha wadan loo daba jooga aadan joogin marka adiga markasta caafimaadkaada unbaa muhiim ah sida caafimaadkaada oo la socoto marka ka faa'iidayso taleefanka gacanta aad ku haysa had iyo jeer social media wax macnaha aan kuu sameynaynin ku jiro waana idin salaamayaa aad iyo aad baan u mahadsantahay sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe aad saartaan waa ku cusba carrada soo dhaweey Soomaali Maxamed aad baa u mahadsantihiin